waxaa muddo 3 maalmood ah ku dhow ka soo wareegtay doorashadii taariikhiga ahayd ee ka dhacday dalka ee lagu doortay mudane xasan sheekh maxamuud oo horey dalka madaxweyne uga soo noqday. waxaa maalintii Khamiista ee 9kii Juun lagu guuleystay xafladda caleemasaarka madaxweynaha hadda, waxaana maalmahan loo fadhiyaa shaqada ugu weyn ee madaxweynaha inuu qabto laga rabo kadib doorashadiisa oo ah magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha dalka. jawiga magacaabidda iyo ololaha loogu jiro raadinta ra'iisul wasaaraha ayaa si weyn uga duwan kuwii hore. sababta ugu weyn iyo saamaynta arrintan ayaa ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud fursad labaad u helayo oo aanu ahayn nin ku cusub magacaabidda wasiirka koowaad. khibradda uu ka dhaxlay 5 sano la soo dhaafay xukunka uu ka maqnaa iyo wixii ka qaldamay 4 sano ee dalka uu hogaaminayay. sida xogta sheegayso, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka codsaday dhammaan saaxiibadiisii la soo shaqeeyay ee ku taageeray guusha uu gaaray in isaga loo daayo doorashada ra'iisul wasaaraha, taas oo keentay in ololaha ra'iisul wasaaraha uu noqdo mid aad u hooseeya marka loo barbar dhigo kuwii hore. madaxweyne xasan ayaa doonayay in kooxdiisu aysan ku kala qaybsamin magacaabidda ra'iisul wasaaraha uu noqdo mid isugu yimaadaan dhammaan taageerayaashiisa. sida la rumaysan yahay, magacaabidda ra'iisul wasaaraha waa mid saaran luqunta madaxweynaha, waxa uuna ka keeni karaa meel ay dhici karto in aan laga saadaalinayn amba loo filayn xilligaana. laakiin saaxiibada ku dhow madaxweynaha ayaa ilaa hadda wada magacyo dhowr ah, waxaana ugu muhiimsana maxamed kaynaan xirsi oo inta badan saaxiibada iyo kooxda ololaha doorashadu ay taageersan yihiin. ninka labaad ayaa noqonaya xamse barre oo ah xildhibaan laga soo doortay Jubbaland, halka Guuleed Saalax Barre oo ay wadaan qaar ka mid ah saaxiibada ololaha doorashada. maxamed axmed doodish ayaa isna ah saaxiib qadiimi u ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud. 4 magac ayaa ah kuwa markasta ku jira sheekada magacaabidda ra'iisul wasaaraha. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo looga adkaa tartankii 15kii May ayaa ka mid ah dadka sida weyn u raadinaya, laakiin xogaha la helay ayaa tilmaamaya in fursadda Siciid Dani ay si weyn hoos uga dhacday. saaxiibada arrinta la raadinaya oo ku sheegay inay jiraan caqabado waaweyn oo hortaagan fursadaha ra'iisul wasaaraha. kulankii maanta ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne xasan ayaa waxaa jira warar ka soo baxaya oo tilmaamayo in looga wada hadlay ciddii loo magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha soo aadana. sida ay sheegayaan wararka, ku dhawaaqidda ra'iisul wasaaraha ayaa la filaya inay noqoto toddobaadkan maanta oo Sabti ah ugu horeyso, waxayna dhibaato badan ka jirtaa hay-adaha halbowlaha u ah socodsiinta shaqada dowladda federaalk Soomaaliya, taasi oo soo dedejinayso in la magacaabo toddobaadkan gudihiisa ra'iisul wasaaraha. dadku waxay tilmaamayaan in waqtigii uu fursadda haystay xasan sheekh maxamuud 30 cisho ah in hadda ay gabagabo marayso, isla markaana wixii hadda ka bilowdo looga baahan yahay in saacadaha soo aadan uu magacaabo ra'iisul wasaaraha la shaqayn doono. madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uga hadlay caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay wax badan dheer tahay dalal waaweyn oo marka la eego dhanka dimuqraadiyadda Soomaaliya uga horeeyay. Farmaajo ayaa yiri, waxaan ognahay in dowlado institution-koodu adag yahay oo naga fac weyn dimuqraadi ahaan ay natiijada doorashooyinka mararka qaarkood hareeyaan muran iyo khilaafaada. wuxuu intaasi ku daray Farmaajo in guusha ay maanta Soomaaliya ku faani kartay tahay mid qof walba guul Soomaalidu ah, isla markaana aysan ahayn mid shakhsi gaar ah uu leeyahay. waxa uu sheegay in marka la eego sawirka guud waa guul sumcadda dowladnimada dadka iyo ummadda Soomaaliyeed sare u qaadayso xilligaana. gabagabadii, madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya uu leeyahay dowlad shaqaynayso, hoggaanka la doortay iyo sharciyadda buuxda oo matalaysa qof walba oo talada qabtaana waqti ayuu leeyahay ayuu tilmaamay. laakiin waxa uu sheegay in laga baran karo qor isku dhiibka inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo dimuqraadiyadda iyo horumarka Soomaaliya qayb ka qaadatay. waana wax aan ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ay noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay. waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto. waxaan ognahay
in dowlado institutionkooda naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad guushan aan maanta ku faanayno ma laha qof kaliya waa guul Soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcadeena dowladnimo waa guul ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeena sare u qaaday macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay laakiin waxaan ka baranay qori isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeenu